الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخيارتا meel kasta aad joogtaan waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxaan jeclahay inaan idinla sheergareeyo arrin yar oo inan walaalkeen ah oo soomaaliya iisoo diray oo xaqiiqatan laba wiil bay ahayn laba video bay iisoo direen subxaan allah labada videoba waa the same idea weye waa isku idea subxaan markaan soo eegay subxaan allah waxa weeye waxay ku saabsan tahay technologyda mobiles phoneka weliba maaragtay khatarka uu leeyahay marka laga hadlayo ilmaha yaryar marka labada video waa af carabi weeye mid baa carabi ah ka kale waa suuradun waa video aan cod lahayn laakiin ka ugu muhiimsan waxa weeye waa maamo wadamada carabta ah joogta oo carab ah oo ka hadlaysa oo dadka aad uga digaysa macnaha dhibaatooyinka oo maaragtay ay ka arkeen macnaha inankeedu ku dhacay cudurkaas marka intaynan labada video baadhin waa laba video muhiim ah si fiican ugu daawada insha allahu tacaala dhowr daqiiqo weeye website yar baan galay maanta oo aan ka eegayey aan jeclaaday inaad la sheer garaysaan waxa weeye wuxuu ku leeyahay khatarka uu mobile phoneku maaragtay leeyahay ilmaha yarar kidska dhinaca caafimaadka weliba wuxuu ku leeyahay liannu qofku maaragtay ilmuhu markuu ciyaarayo bahalkii ishuu usoo dhaweynayaa marka dhowr saacadood buu saa ugu haynaya mogta indhaha dhowrkaa saacadood dhibaato weyn ba ka gaarhsa dimaaq ama brainka ya iyo dhegta dhinaca dhegta leannu maaragtay radiationkii ama waxaynu nirahdaa shucaaca maaragtay ama x-rayga radiation baa la yihahdaa radiationkii wuu geli karaa dhinaca maaragtay brainka maskaxda wuu geli karaa sababtana waa ku sheegayaa halka wuxuu ku leeyahay ilmaha yar iyo qofka maaragtay baaliqa ah ama adaltka ah way kala duwan yihiin qofka yar waxaa lagu leeyahay 60% radiationka isaga qaata wuu ka badan yahay macnaha qofku intuu qaadanayo imagine why leanno maskaxdiisu waa yar tahay waa ilmo yar weeye skin ama maqaarka maskaxdu waa thin aad buu daciif yahay waa khafiif weeye lafaha maaragtay brainka kusoo wareegsanee madaxaaga ama skalka maaragtay waa lafo yaryaroo daciif ah marka yani in badan ayuu ka jilicsan yahay qofka weyn madaxiisa isuma dhowa shaqo iskuma laha sidaa awgeed markuu ilmihii yaraa bahalkii qabto oo in dhowr saacadood haysto radiationku si easy moogtahay buu ku sameynaya waxa la yihahdo penetration macnaha wuu gudbinayaa ama wuu absorption bay yirahdaan absorption macnaha wixii wuu soo nuugaya so absorb markaad wixii soo nuugisid weeye absorb waxaa loo isticmaalaa badanka moogtahay waxyaalahan chemicalka iyo waxyaalahaas oo kale marka maskaxda ilmihii yaraa waxaan si easy usoo nuugaysa hadhow maxaa dhacaya dhibaatooyin waba ka imanaysa meesha cancer baa dhici kara tumor waxa la yihahdo ama mid khatar ah ama midaan khatar ahayn adigu akhiritaanka ilmihii waxaa dhici kara inay maskaxda wax kaga dhacaan electricalkaas iyo maaragtay radiationada fara badan ku dhacaan marka halka websiteka waad geli kartaa momjunction.com ka akhriso waxaasoo ku jirtaa meesha ayib videoyada la iisoo diray haddaba aynu eegno insha allahu tacaala kanaan iska dejino kan waa kii hore waa kii labaad ka hore ii eega ka hore cajiib ah maamadan waddan carbeed oo joogtaa maamo carbeed weeye inankeedii yaraa dhib weyn baa soo gaadhay videogan wadamada carabta aad ayuu moogta ugu faafay baryaha kan marka eeg waxa ay leedahay waxay hadalkeeda dhegeyso السلام عليكم يا أمهات أخباركم أنا والدة سعود الهزاني waxay tiri way idin salaantay hooyooyinkow inanka magaciisu hebel la yiraahdo ayaan hooyo u ahay اللي ولدي معاكم مدرسة فصل عيالكم والله عن تجربة وإني داقة الناصحة لكم كلكم way dhaaratay waxay tiri wallaahi ilaahay bay ku dhartay waxay tiri waa tajribad waan arkay dadku dhan waan la xiriiray ولدي من يوم الخميس فجأة قام يتشنج صابت تشنجات min maalintii khamiista waxay tiri waxaa ku dhacay tashanujaad waxa weeye macnaha casaabtii oo dhan baa isku gariir wuu gariirayaa mar uu joogo unbuu maaragtay ku kacaysa casaabtu من الخميس لحد يومكم هذا وأنا بالمستشفى منومة ilaa khamiistii waxay tiri waxaan joogay dhakhtarkan la hurday inanka yar وكل شوي إشاعات 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 أن لقوا فيه كهرباء في الرأس waxay tiri mar kastaba waxaa loo sameeyaa x-ray madaxa lagu sameeyaa
waxaa la yidhi madaxa kahrabad baa kaga jirta بت الجوال. waay sababtuna waa mobilka والله العظيم يا أمهات بسبة الجوال لقوا فيه كهرباء في الراس وسببت لي تشنجات. waxay tiri kahrabadaas waxay u keentay dhibta keentay oo dhan madaxa iyo dhibaatada oo kahrabaday tiri mobilka u leeyahay ونمس حنا كلها تخطيط وإشاعات. أمانة 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 عليك. ilaa shalayto waxaan ku jirnay arrintaa oo marba egsi laga raadayo marka waxay tiri amaanadaa gudbiya إنك تشيل لنا الأجهزة من عيالك. caruurtiina ka qaada mobilka caruurtiina ka qaada mobilka ولا تشوف إن اللي أنا شفته haddii kale waxaad arki doontaa waxaan ugu aan arkay dindheeda ku aragtay mugta يوم تشنج علي بالبيت ما عاد قدرت عقلي راح مع ولدي. waxay tiri markuu waxaas cudurkaas ku dhacay maskaxdeedii isagay bay raacdayba أمانة أنا طالبتك ودعتك إن الله إنك تشيل لنا. si yacni aad bay moogtahay gabadhaasu dadka uga digaysaa amaanay ku leedahay wadactaka allah yacni haddaad ilaahay jeceshahay yacni adigu wax moogtahay ay aad yani hadallo aad u murugo badan weeye حافظهم عليهم الله إن من يوم الخميس لحد هالساعة هذه وإحنا متعذبين. الله يجزاك خير والله أعرفك والله إن من طرى على بالي طلعت من الإشاعات اليوم قلت والله لدق عليهن وانصحن. dhaar baa maray bay tiri wallaahi markaan ilmahayga arkay waxaas ku dhaceen baan dhaar baa maray inaan dadkoo dhan waco oo uga digo hawsha والله القسم اللي أنا فيه حالات أصعب من حالات. waxay tiri qaybta dhakhtarka aan tegay aan joogay xaalado ka khatarsan inankayga xaaladiisa ayaa jira ولدي جاء تشنج بس براسه ووجهه كل شوي يعني بس براسه. inanka yar dhibtu waxay kasoo gaadhay wejiga iyo madaxa mar kastaba saasuu moogtahay madaxu saasuu u gariirayaa wejiga marba isbedbedelaya اللي أنا شفتهم جسمهم كامل ينفضهم. kuwa anigu aan arkay bay tiri jidhkoodu dhan baa budbuudiyey yani jidhkiibaaba ku diidaya oo sule aan ka baxo qofkan lafiiba hilibkii iyo jidhkii iyo maqaarkii wuxuu doonayaa inuu dibadda u soo baxo macnaha dariiqada ay sheegayso jidhkiibaaba ku diidaya kulaada هرب كامل. وأنا جيت منهارة قال لي الدكتور تعالي مشيت على الحالات كلها وتشوفينها. marka waxay tiri anoo niyaddu iga jaban tahay oo moralka iga jabay oo naftii hayso dhakhtarkii baa yeedho yiri kaale xaaladaha kale aan ku tusay يقول يوميا يدخلون علينا أقل شيء 10-15 حالة. wuxuu ku yiri maalin kasta 10 ilaa 15 xaaladood baana noo timaada dhakhtarka caynka ku leh يقول يوميا إذا مو بمستشفى الحبيب فهي في مستشفيات الرياض. dhakhtarada riyaad bay ka sheekeynaysaa يقولوا كلها من الجوال ومن اللعبة اللي اسمها فورنايت. waxay tiri waxaasoo dhan dhibta keenaysa waa mobilka iyo gameka la yiraahdo Fortnite gameka ilmaha jooga Europe oo dhan iyo carabaha Fortnite-ka qof aan ciyaarin ma jirto 4 5 6 7 saacadood baa soo loo ciyaaraya marka aad bay uga ashtakotay gameka والله يا أمهات إنه يقول هالحين قاعدين نسوي توصية إن اللي يجون عيالهم هالشكل إن أهلهم يتحقق معاهم لأن hadda waxay tiri way dhaaratay hooyooyinkoo bay tiri wallaahi waxaan lagu yiri qofka la arko ilmihiisa oo sidaa noqda taxqiiq ama baaritaan askarta loo geenaya waa la baaraya ilmihii mogta ama waalidkii baa loo tegayaa waa la soo qabanaya كم أهملتوا oo ilmihii ihmaal bad ku samayseen oo keer ma idin siin عيالكم فيقولون إحنا راح نطلب من الشرطة أنها تحقق معاكم مثل ما تحقق مع أي قضية ثانية. يعني بليسكا ayaa taxqiiq idin sameynaya sida qadiyadaha ay maaragtay dhibaatooyin ka jirto adduunka loo sameeyo taxqiiqa ayaa idinka la idin sameyn karaa أن هذا يعتبر إهمال جهة الطفل. يقول لي تعالي شوفي الوضع. يقول والله العظيم تعبنا هذا اللي جاني اليوم دكتور مخ وأعصاب. يقول ما الحالات اللي قامت تمر عندنا. dhakhtarka waxaa ka hadlaya waa dhakhtar maskaxda iyo maaragtay mukha iyo maskaxda iyo daweeya هذا isaga ka hadlayay arinta قمنا نعجز. يقول والله الطب قام يعجز عن حلها. wuxuu yiri caafimaadku tibku xalba uma laha arintan oo kale waa arin nagu cusub buu yiri xal uma laha. يقول أقرب حل نعطيكم مثل المواد المخدرة عشان ترخي أعصابه. wuxuu yiri xalka kaliya waa in ilmihiisa siiyo wax darooga ah oo si acsaabtiisu relax noqoto xal kale ma laha.
بيتعود على المخدرات علشانها. يقول لي hadhowna wuxuu ku leeyahay dee drugskii buu khalaas caadi bay u noqonaysaa markuu markasta isticmaalo. وش اللي حادكم؟ هو سعودي ما شاء الله، يقول وش اللي حادكم؟ يحلف انه دكتور وراتبه يقول فوق 25,000، يقول والله العظيم عيالي ما عندهم الأجهزة. dhaar buu maray ninkaas wuxuu yidhi waa dhakhtar wuxuu yidhi 25,000 oo riyaal lacag ka badan baan qaataa carruurteedana mobil waa u diiday. yani masaladu ma aha inaan maanta idhaahdo oo ilmahayga war ha qaateen waxay rabaan ha qaateen 5 mobil 6 mobil ha ku raaxaysteen dhib ma laha. qof kasta ilmihiisa wuu iibin karaa mobil laakiin waxa weeye mushkiladda mobilkii inankii xag u geenaya. marka ninkan dhakhtarka wuxuu yidhi 25,000 riyaal baan qaataa sanadkii ka badan ilmahaygana mobilada noocan rabaan u keeni karaa laakiin waa u diiday totally ila ilmuhu u baqaya mogta. يقول مستحيل تدخل بيتي. mustaxiil buu yidhi in mobil lasoo geliyo gurigeyga walba ilmo yaroo teenagerka oo de wax 5 jir 6 jir 7 jir ah. من اللي أنا قاعدة أشوفه من عيالكم. wuxuu yidhi dhakhtarkaa ka hadlay wuxuu yidhi markaan arko ilmihiina oo waxaas ku dhaceen wala go-aan baan gaadhin weligay ilmahayga waxaas kale u keenin. بس يقول لي الحمد لله سعود يعني بدايته وأشوى يعني مجرد بالراس اللي جته، أما يقول تعالوا almuhim videogan waan dhammaynay dhammaadka gabadhu way dardaarmaysaa macnaha dadka la waxay leedahay walaalayaal ilmihiina ilaaliya waa mas-uuliyad weeye. ilmahaaga beri markuu noqdo disable oo aad waxba u diidin oo uu disability ay ku dhacdo oo uu naafto noqdo oo hadhowto dhibaato wey mogta ilaahayna qiyaamaha ku weydiin doona. marka kaas waa videogii hore. videoga labaad waa video maaragtay aan dheerayn laakiin bal eg inankaa yarday waa 40 second inankaa yarday dhibta ku dhacday daawo tabletku isticmaalaya dhowr saacadood daawada suuradda. waxaad moodaa inanka in siiyey dawo ya in dawo la siiyaad moodaa sidii qof maaragtay dawaqsan wax cabsan maaragtaa waa dhacdhacaya inanka yar tablet baa loo dhiibay yimkin 5-6 saacadood uga tegi. maaragtaa subxaan allah halkaas ku dhammaaday videogii. marka akhyaarta waa idin salaamay dhammaantiin aad baan idin salaamay insha allah ka faa'iidaysta arrintan. subxaanaka allahuma bixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk.